hubanti la'aan ayaa soo wajahday kulan maanta la filayay in xarunta madaxtooyada Soomaaliya uu ku dhaxmaro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda madasha mucaaradka ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed. kulankan oo daba socday shirkii Axadii dhacay waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud codsaday muddo 3 maalmood ah waxaana ay labada dhinac saareen guddi ka kooban min 3 xubnood oo soo diyaariyay heshiiska laga gaarayo cutubka afraad ee wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. saacadihii la soo dhaafay waxa socday kulamo aan loo kala kicin oo dhaxmaray guddiyada labada dhinac ee madaxtooyada iyo mucaaradka waxaana shirkii ugu dambeeyay oo dhacay habeenkii xalay la sheegay inaan wax horumar ah laga gaarin marka loo eego doodihii socday saacadihii la soo dhaafay. xogaha aan helayno ee la xiriira qodobada ugu adag ee dooddu ay ka taagan tahay ayaa sheegaya qaabka looga noqonayo isbedelkii lagu sameeyay cutubka afraad ee dastuurka ku meel gaarka. qodobka koobaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ogolaaday in uu ka tanaasulo balse waxa ay guddigu ay soo jeediyeen in qodobada qaar ee cutubka ay diyaar u yihiin sida qaabka doorashada, tirada xisbiyada, xilka ra'iisul wasaaraha iyo kuwa kale. dhinaca madasha mucaaradka ayaa ilaa iyo hadda ku adkaysanaya in guud ahaan laga noqdo isbedelka lagu sameeyay cutubka afraad ee wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya. 3 in asxaabta siyaasadda la furo oo laga badiyo 3 xisbi iyo wixii ka badan waana la aqbalay. qodobka afraad in xildhibaanadu ay aadaan doorasho dadweyne taasna waa la isku raacay. qodobka 5aad mucaaradku waxay soo jeediyeen doorashada madaxweynaha in la aado teendhada laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku adkaysanayaa doorasho qof iyo cod. Arbacada maanta kulanka la filayay inuu ka dhaco madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn isha loogu wada hayo ayaa u muuqda in uu baaqday maadaama guddiyadii hore u shiray aysan weli soo saarin natiijo dhammaystiran oo la xiriirta qodobada la isku mari la'yahay.